sameeyay sanadkii hore iyo sanadka maxaa ii ziyaaday maxaa kordhiyay sanadka dambena maxaa kordhina adiga marka isla tartamtid goal fiican aan noloshaada ka gaaraysaa at the end of the day xataa haddii dad badan ay kaa fiican yihiin maku focuska ma saaraysid heblaaya iga fiicneed ama hebel iga fiicneed ma dhihi doontid waxaa dhihi doontaa aniga shalay meeshaa joogay iyo maanta meeshaa joogo isku mid ma aha alxamdulilah taas aana maxay tahay ku noqon doonto dhiirigelin buuxda midda ugu dambeyso oo aad ii caawiso waxaa waaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودا واذا channelkayga عايشة عنب كسودا واذا أنا جواها عايشة أدي سو نقضي وح إذا لسه نقضينا فيديو عصب أو إذا حيسة قلنا دون فيديو قالوا حكوا سابسي هاي بيبعتها الصيدة أو الصباح يعني جم تنو حارجين إن نقطة dhiirigelin gabar kasta ama wiil kasta oo xaalad dhib ah ku jiro xaaladda dhibka bis ma aha kaliya xaalad guur xaalad xaalad ay noqotaba waxaa rajaynaa in ay ku anfici doono talooyinkan biidnillaahi tacaala talada ugu horeyso waxaa waaye ilaahay inaa aamintid 100% inta badan waxaa dhahnaa ilaahay aaminayna laakiin ilaahay waxaa aaminaynaa percent yar ama yani wax yar aaminayna laakiin ilaahay markaa aamintid full maxay si dhamaystiran marka aamintid wuxuu qalbigaaga ku dagaa wax alla wixii dhaco way ku qorneen wax alla wixii dhacana waa waxa ugu fiican ilaahayna wax fiican uu rabaa inuu ka soo saaro taas marka ugu fikirtid 100% waxaad dareemaysaa sakiina degnaansho aanan caadi ahayn waxa ku tusaaleyna ama maxay ahayd araba inaan idinku fahamsiiyo imagine adigoo xaflad ka soo baxay ama masaajidka ka soo baxday ama banooniga ka soo baxday meesha noqoto ama iskoolka xataa waalidkaaga ku soo qaaday ama hooyo ha noqoto ama aaba ha noqdo waalidkaaga markuu ku soo qaaday adiga marka baabuurka waalidkaaga wad adina dhinacana fadhisaa jidkii caadiga mari jirtay marka guriga u socotiin maaha jid kale oo waalidkaaga ku marsiina adiga waxa dhahday waalidkaaga aa weydiisay hooyada ama aabaha waxa weydiisay intee u soconaa jidkan ma aqaan intee u soconaa wuxuu ku dhahayay ama ay ku dhahday sug iga war sug adii hadegdegeen meesha ku geynaya arag xaaladaas qof idin kamid ah oo booliska wacay lahay ma jiro oo dhihi lahay oh my god hooyadii ama aabahayga kidnap igu sameeyay jidkan jidaan aqoonin waaye oo waa cabsanooya ma jiro maamay leen waxa ogtahay qofkan waa waalidkaaga jid alla jidka noqotoba si kasta oo jidka oo ku cusub yahay ama wax kasta ay noqoto waalid qaar way jiraan laakiin badan waalidka waxa haysanaa aaminaad iyo kalsooni buuxda waxa ognahay waalidkaaga kuma dhibaateynayo wax alla waxay noqotoba jidka haduu kuugu cusub yahay xataa waa aamuse waa u suge meesha tagtiin adoona walwal qabin same adigana isku mid waaye ama isku mid ma aha laakiin ka tusaale qaado Allah subhanahu wa ta'ala markuu dhibaatooyin ku marsiinayo dhibaatada aad ma fahamsanin maxay kuugu dhacaysaa ma fahamsanin intee ku wada dhibaatadaas maxaa ka dhici doona dhibaatada maxay ku dhamaan doontaa nihaayada maxay noqonaysaa ma ogid laakiin 100% waxa ogaataa Allah subhanahu wa ta'ala dhibaato kuma marsiinayo illa ma hina inay khayr ku tahay مؤمن كان النبي صلى الله عليه وسلم حوده هي قاضح يريس ما مرتو ما درتو إلا موية أجر إلهي وقراء دنبقي سنة ولو وعفنا مركز تاس مركز تأوغاو أنا قلنا انت بدن قلبي جيجو حق وجناي تاس واي رباط بدن أعصى مرتي لكن مركي كوب وحد يجري دبرشك بك يقول على هاد وحد يجري ليش أنا maxaa qalabsada maxaa insan leegu cadaaba maxaa insan umaroya maxaa dhibaatada dhan igu dhacaysa maxaa qofka ii xumeena maxaa laakiin markaan waxa ogaaday adigu yaa tahay maxaada badan waxaaba iska dhigtay baqaf weyn oo adiga la dhibaateyn karin ilaahay ma ka weyn tahay waa may Allah saa ku abuurtay abuursta oo ku abuurtayna dib Allah dib ko rabiyo inuu ku marsiiyo xaq u leeyahay لأن رب العالمين واي هذا جو أنا صن أدلناتا أو يعني صن كروريسا
soo taas markaa ogaaday alxamdulilah nolosheeda wax badan aan iska bedelay. midda labaad oo aan markasta i caawisay waxaa waaye in aan barto wax kasto inaan ka gudbo. awalkii wax markay igu dhacaan cajalad camal way igu soo noqon jirtay laakiin hadda waxaa bilaabay inaan dhaho you know what way dhacday, ha ka fikirin, cashir ka baro, ha ku noqonin, naftaadana cafi. tan saddexaad oo aad ii caawiso waxaa waaye nafteyda inaan cafiyo, inayna nafteyda wax qalad ku lahayn waxa igu dhacayo. inta badan waxaan ahay qof is eedeynayo markaa wax yar aad dareemo adaasaan naftaada markaa adiga dhaleecaysid, adiga aad maxay ahayd hoos geysid, kalsooni ama maxay ahayd energy wax ku qabato ma helayso. adiga aad naftaada nooleyn kartid ama dili kartid. marka aad isdhahdid you can, qofka ugu fiican adduunka adaa is-ogaaw waa foolxun tahay, is-ogaaw waa xun tahay, laakiin marnaha isku qiiranin. markaa isku qiiratid aniga waa xumahay, markaas noloshaada waxay bilaabanaysaa hoos inay u socoto. mar alla waxaa samaysa waxaa dhahda aniga no waxay ka qaldan ma laha, abuurista ilaahay. haddaa foolxun tahay ilaahay ay abuuray. I'm pretty, qurux leeyahay, kartiyaa leeyahay, caqliyaa leeyahay, dabeecadaa leeyahay, qof fiican oo wanaagsan ahay, qof dhib alla dhibku ilaahay geliyo kasoo bixi kartaa ahay. markaa naftaada saas u dhiirigelinaysid wallaahi balan waxaa kaaga qaaday naftaadana inay iyadana meel kasto kasoo baxdo, wax kasto ee martana ay kasoo maxay ahayd niyad fiican iyo si fiican ay uga soo baxayso. tan saddexaad oo caawiso waa taas inaan nafteyda dhiirigeliyo. marmar dib waa igu dhacaa, marmar waxaa dareemaa oh my god you know nolosha is even worth it. adiga kaligaa cararayo, kaligaa ordayo, kaligaa wax kasta samaynayo. marmar waxaa dareemaa in yani orodkayga oona noqonaynin orod oo yani hal bacaad lagu lisi inay tahay orodkayga. laakiin markaas camal hal maalin iyo waa isi siiyaa, you know feelingskaaga ma la daboolo. you more feelingskaaga dawasho kugu qarxa. hal maalin camal okay sad dareem maxay ahayd iska ooyin nolosha dhan nac, laakiin hal maalin markasta waxaa isku dayaa maalin hadduu iga xumaado oo maalinkayga noqdo maalin sad maalinka dhan aad dareemayo nolosha inaa aniga waay ama xumaan aad dareemayo, maalinkaas dhammaadkiisa waxaa ku seexdaa biri inuu ka fiicnaanayo maanta. habeenkaas markaas seexdo subaxi markaas soo kaco rutiinkayga hore u noqdaa, ma u ogolaadi fikiryaha oo haddana sad iga dhigayo ama murugo ay siyaadinayo in ay igu soo noqdaan maalinkaas dambe. markasta saas sameey. adiga kaligaa xisaabiyo isku adiga kaligaa aana is og fikirahaas waxay kugu bilowdaan siday yani ay kugu sii socdaan ee maalinkaaga dhan u xumeeyaan adaa og. adigana waa inaad dhahdid stop. hal maalin ogolaaw inaad feelingkaaga dareemtid. way fiican tahay marmarka qaar in aad dareemno feelingkeena oo u ogolaano nafteena inay saad noqoto. nolosha maalin kasta farxad ma aha, laba gelin waaye, laba daar waaye, maalina farxad maalina murugo. murugada ogolaaw naftaada inay dareemto, laakiin ha isku badinin, ha isku ziyaadinin. markaa wax yar maanta aad isdhahdid okay maalinkayga dhan murugo ahaay, caawa markaa seexanaysa waxaa ku seexataa beri waa inaad choice ka fiican kuwii shalay aan sameeyaa, noloshaydana ee ka fiicnaanta sida shalay. tan kaleeta oo ani iga caawiso waxaa waaye markasta naftaada la tartan. qof kaleeta ha hiigsanin, dad kale ha fiirinin, adiga le isla tartan. ogaaw shalay maxaa sameeyey, maanta wax ka fiican inaan sameeyo waaye. taasna 100% aad ay caawisay, lianna aniga waxaa soo maray iyo qof kale waxaa soo maray isku mid ma aha. sidee isku barbar dhigi karaa qof kaleeta ama sidee qof kaleeta ula tartami karaa?
qofka ugu fiican oo la tartami karto waxaa waaye naftaada. shalay maxaa sameeyay waxaas, okay maanta maxaa kordhiyay oo waxaas ka fiicnay oo sameeyay. sanadkii hore iyo sanadka maxaa ii ziyaaday, maxaa kordhiyay, sanadka dambena maxaa kordhina. adiga marka isla tartamtid goal fiican aan noloshaada ka gaaraysaa. at the end of the day xataa haddii dad badan ay kaa fiican yihiin ma ku focuska ma saaraysid heblaaya iga fiicneed ama hebel iga fiicneed ma dhihi doontid. waxaa dhihi doontaa aniga shalay meeshaa joogay iyo maanta meeshaa joogo isku mid ma aha. alxamdulilah. taas aana maxay ahayd ku noqon doonto dhiirigelin buuxda. midda ugu dambeyso oo aad ii caawiso waxaa waaye mar kasto ilaahay uma hadnaq. ilaahay wuxuu dhahayay لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا إما هاد علسان وإذن بدنا. رزقك انتو كإماذا إلهي، الحب انتو كإماذا إلهي، والحنان انتو كإماذا إلهي، المو انتو كإماذا إلهي، السعادة انتو كإماذا إلهي، محاية السكسس أما إنا نولوشة هير أكا جيت انتو كإماذا إلهي. كل شيء بيد الله. wax kasto ilaahay gacantiisa ku jiraan. waxyar hadaa heshid oo aad u mahad celisid ilaahay, ilaahay wuu ku ziyaadina waana balantiisa. ilaahay balantiisana marna ma jabiyo. laakiin waxaa dhici karta waxyar in lagu siiyo adiga lagugu fiirinayo aa ku kibirtid ama aa isdhahdid anaa samaystay dhulka kula go'o wixii dhan zam kaa dhaxan. wax yar markaa heshid waxaa lagaa rabaa inaad dhahdid ilaahayow aniga maxaa sameeyay ba waxaan ku helay. leesh ana maxaa sameeyay inta dhiileed leesh ana maxaa leegu imtixaama leh leesh ana maxaa leey yani nicmada lay siiyay. nicmada markaa dhahdid oo ilaahay isku dulleysid oo dhahdid yaa rabbi nicmadan ma mudnayn aniga leesh lay siiyay, ilaahay ku ziyaadina. لأن إلهي وحقه عبدي سنتها أو فقير أطهي. دعوينك وحاجة دعوين أو إلهي اسكو قدو ليني سيد الدعاء ما كان سيد إلهي اللهم إني اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. ويعني my forehead is in your hands. يعني هذا my leader. إلهي واسكدوا الليسي مركا ديسيد اللهم إني فغير، اللهم إني عبدك فغير. إلهي وحاهي أدون كاغا فقير. إلهي وكسينا ملكي إيسان إلهي دو كون أنا كنسيو ما يزول وحقو كيرانا يملها إلهي وملكي آدي أدوين النورم رمانيني سو مركزتو إلهي أحمدي وما هادنق إلهي نوكو بدنا مدة كاليتا أو اسك إلهي سدو حاواي أنا مرنها لين وحينا أدونك أذيك كنستي لأن أذيك وحاتي فقير عبدي يرى طوير هدي بس إلهي دهيو ديل نينكا قف كان نفتها لغا سو قاد ملك الموت نفتا كسو قاد نفتاده حتى ما دفاع عنك توا لغا قادا هادو إلهي رزقي دن hala siinin dhaho رزقي دن meela ka arkaysid malaha buura kortaya ka degtaya ma arkaysid. soo markasto adiga waxa isku malaynin wax aad tahay malaha waxa ku nahnay ilaahay qofka jeclaada ilaahay qofka wax ka dhiga wax noqonayo. soo aniga talooyinkan hadda aan sheegayo wallahi caabiyan aadi aad يعني فكرك وحبدلي كرا عمل oo dhan saa u fikiraysid waxay bedeli kartaa waxa ku dhaqmaysid. so fikirkaaga markaa wanaajisid stepka aad qaadanaysid wanaag u noqona. fikirkayga bedel 100% halka aan markii hore ahay qof iyada is saarayso wax kasto oo isdhahayso aniga leesh ay ugu dhaceen حتى ما مر إلهي عافيه وحجار جر أسليه جري إلهي وكنعب يهاي نعيب إلهي كوقا وإنت أنكو مرسينا
qisadeeda ani hal part le kasoo sheegay laakiin dhibaato badan wallahi la kulmay dhibaatooyinkaasna markasta waxaa isdhihi jiray adiga ilaahay wuu ku nacab yahay liajli dalik ilaahay waxaan dhan kuu marsiina ilaahay hadduu ku jeclaan lahay makuu naxariisan lahayn miya wax yar xataa makuu naxariisan lahayn miya addoontiisaa tahay qof yaraa tahay maskaxda inuu kaa waalato muu ilaahay rabaa laakiin waa qalad fikiryahaas waa fikiryo qalad alxamdulilah ilaahayna inuu iga soo bixiyay alxamdulilahna inuu ilaahay bedelay sidaa u fikirayo liana nolosha inta badan gacantaaday ku jirtaa cabdiga ilaahay wuu abuuray wuxuuna siiyey ikhtiyaar adiga aad dooran kartid si alla sida noloshaada ka dhigi kartid markii koow noloshayda gacantayda ku jirtay laakiin noloshayda bahdil iyo diiqad aniga aageliyey liana markasto anaa dhihi jiray adiga saan adiga xun adiga wax fiican inay kugu dhacdo u qalmin adigu ilaahay ku nacab yahay this and that laakiin markaa bedelay oo dhahayno waa adduunka wax kasta dhacan nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dadka ugu fiicnaa ma ka fiicantaa adiga waa may asiga intaas oo dhib soo maray adiga markii yaa tahay xaliimo yaro 2020 ku noolaa tahay so markaa isbedelay alxamdulillah wax badan noloshaydana way ka bedelmeen wax kastana ilaahay wuu ku fududeynaa so intaas talo hadaa raacdid باذن الله تعالى noloshaada isbedel badan ay ka arki doontaa inta ku wada kulmi doono video saan camal waxa ku rajeynaa walaalkayga iyo walaashayda ina ku noolaatid saacada طول عمرك ina farxad iyo bashbash iyo reereyn ku noolaatid noloshaada inta ugu dambaysa insha Allah yani noloshaada dhan insha Allah inta ku wada kulmi doono channelkayga markaleete walaal waxa ka codsan inaad subscribe ka taabtid thumbs up kana idaahdid si ay dad badan inoogu soo xirmaan insha Allah waa idin jeclahay. Assalamu alaykum.